الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي في العقيدة، مرة شرحنا على كلمة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أصلاً أحاول درس ولا لازم لكن وكان كثير ماشي في الجو. فحسيت إذا أنا وحوضع تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام من سيرة فينا وكان لنا وحنا نسجد إذا أنا نطابع أنا بقول أنا كتاب فرق مرنين إن كتبت أنت بدنا السنة يوم كتاب الرحيق المختوم لا ينعده هذا شيء قلم معي هذا أكرم ضياء العمر السيرة النبوية الصحيحة في صلى الله عليه وسلم. لكن حسيت إذا أنا بل عموما لولا كتاب المقاد السنة إنه وحي قابا إنه صوبا لجدانه ويسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحي في المامسة ودينتي أولا دقن جليل marka waa dadkii diinta dhaqan geliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii oo ah sifadii ugu saxsanayd ee loogu dhaqmo islaamka. inaga waxaynu haynaa hadda isagoo qur-aan iyo sunno ah oo qoraal ah, laakiin marka kale waxa weyaan isagoo camaliya oo dad ay matalayaan qur-aanka iyo sunnadii, yani dad ama bashar dhaqankiiba waxay matalayaan qur-aanka iyo sunnada siday ekaayeen. saa daraaddeed way fahamkeedu wuu ka dhowiyo qofku inuu markiiba suuro fiican ka fahmi karo diintu siday ku faaftay ama wixii ay siday ama risaalada iyo macnaheediiba. waxaan isku dayi doonaa markaasi balse labada sheekh usoo naqlayaan inta badan inaanu soo guuriyo. haddii ay jiraan mawaadiic ama meelo loo baahayo in gaar loosii tiltilmaamo insha allah haddaynu awoodno isku dayi doonaa. cumuuman culamada muslimiintii markay siirada ka waramayaan waxay u sameeyaan gogoldhac ama hordhac. hordhacaasi waxay ka bilaabaan ama waxay ku tilmaamaan wixii nabiga ka horreeyay calayhi salaatu wasalaam. hordhaca waxaa looga danleeyay inay dadku fahmaan bulshadii uu nabigu u yimi caynka u ekay, si aada u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe sida u ekaatay. yani waxaad qiimeyn fiican sawiri kartaa nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamacii muslimiinta ee kawirna sida u ekaadeen inta uu u jiray mujtamacii hore ee jaahiliga ahaa. oo marka ka jaahiliga ah suuradiisa aragto ayaad garanaysaa dadkani inta ay guureen inta ay leekay. waxaa kaloo runtii dhabayaanayaad garan kartaa maadaama mujtamac noocaa u egba la horay oo islaamnimada ay bedelka intan lee ku samaysay inaanu jirin mujtamac dunida kamid ilaa la rari karo nooca loo rari karo. ay ku xidhan tahay sida alla ina waafajiyo subxaana watacaala iyo sida dadku juhdi uu bixiyo ay dadka diinta kan ugu yeedhayaan. qaybtaa hore markay ka waramayaan culamada taariikhda islaamiga qorta qaarba sibay u tilmaamaan, qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taarikh muujisa inuu kasoo sheega. yani min aadam kutuba taarikh in badan oo kamidi nabi aadam bay kasoo bilaaban, qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidii loo sameeyey waaka ilaa way soo gaarsiiyaan. laakiin taariikhahaas hore qadiimka ah waxoogaaba yare waxyigu sheegay mooyaane inta badani maxfuud maaha. sidaa awgeed labadan kitaaba horteena yaalla midba in buu soo koobaya, laakiin waxaa isku dayi doonaan inaan si fudud u wada guud maro. kow, ummadda carabeed iyo dhulkay degto waa dhul macruuf ah. carabina intan jaziira alcarabiya la yidhahdo inbay taarikhdeeda dambegi jirtay. carabta taariikhiya markay culamadu qaybinayaan ilaa 3 qaybood bay ka dhigaan. carab ay yidhahdaan waa alcarab albaa'ida ama carabtii tirtirantoo hore ee gabowday, waa caad iyo samuud iyo kuwan qur-aanku ka waramo. iyo carab ay ku tilmaamaan alcarab alcaarida oo ah qaxtaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha. iyo carab almustaaraba oo ah kuwii nebi ismaaciil calayhi salaam ka abuurmay ama cadnaan cidda gashaa. inkastoo culamada bad ay leeyihin qaxtaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galeen, waana sida uu rajaxayo ibn xajar alcasqalaani xafidahullah raximah llah. alxaafid ibn xajar waa sida uu rajaxayo oo isagu wuxuu leeyahay labada kooxoodba qaxtaan waa min aali naabit ibn ismaaciil buu qabaa, halka ay qoladan kale ka yihiin
cadnaan ibnu ismaaciil ay ka galayaan. marka aynu soo koobno had iyo goor taariikhda carabeed marka la tilmaamayo, masalan qaxwaaniyiinta nimanka la yidhahda asal waxa u ahaa yeman, laba qabiilo waaweynna way u qaybsanaayeen, niman ximyar la yidhaahdo iyo niman kahlaan la odhan jiray. kahlaan inta badan waa guureenoo shaam iyo masar iyo dhulkaasi dadkii beli jiray markii dambe ayay u badnaayeen. ximyarida u badnaa dadka meesha kan kusoo haray. carabta kale ee mustacrabka ee cadnaaniyiinta loo nisbaynayo waa carabta markaasi nebi ismaaciil si daba uga afirsata. nebi ismaaciilna waa ina nebi ibraahim calayhim assalaam. nabiyullaahi ibraahimna saynu taariikhda ku wada hayno dhulka ciraaq buu ka soo baxay, ama dhulka ciraaq buu u dhashay, dabeetana falastiin buu u hijrooday, kadibna wuxuu yimi maka, halkan markii dambe laga sameeyey. waxaanu keenay saynu wada naqaano xadiidkii bukhaari ku yaalla ibn cabaas uu warinayo, mawquufka ibn cabaas ku ahaa siduu sheegayey. haweenaydiisii haajaro la odhan jiray iyo ilmihii ay dhashay oo nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam, labadoodaasi ayuu maka keenay. dabeetana maka ayuu kaga tegey isagoo aan waxba uga tegin, uga tegay oo qura sibraar biyo ah iyo mid timir ah, ama laba weeloo midna biyo ku jiraan midna timiri ku jirto, oo u sheegayna inuu ilaahay subxaana watacaala amray inuu halkaa kaga tago. sida aynu taariikhda ku haynana waxaa la tilmaamaa ibraahim inta la hubo 4 jeer oo dambe ayuu meeshaasi kusoo noqday. yani markaa hore ismaaciil keenay, mar labaad ayuu yimi oo ah markan ay nusuusta qur-aanka ka warramaysa uu rabay inuu qalo ama inuu gowraco wiilkii ismaaciil ahaa. falama aslama wasallahu liljabiin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. مثل الله سبحانه وتعالى كورميه ويقول كتاب التوراة هيسته أما كان يمك التوراة كل شيء سفر التكوين كودنا وكل شيء ودورية تبشير مركاها نبي الله إسماعيل marlabaadkii uu kusoo noqdayna waa markay axaadiista ka warramaysaa inuu yimi oo dabeetana u yimi isagoo nabi ismaaciil ka maqan yahay gurigiisii oo gabadhu qabay uu ugu yimi. dabeetana uu weydiiyey xaalkoodiiyo siduu yahay oo ay sheegatay markaasi in dhib badan ay haysato, nolosha ay cidhiidhi ku tahay, oo yidhi waa tegaya inankaygii fariintaa gaarsiiya. waxaad ku tidhahdaa aabbaha wuxuu ku yidhi caqabada albaabka ama kaabada guriga gabadha ayuu ku yidhi aabbaha. nabi ismaaciilna markii uu yimi ay gabadhii u warantay wuu fahmay aabihii warkii uu uga tegay oo ahaa gabadhan iska sii daa, mid khayr badan maahe. dabeetana waa iska sii daayey. waxaa kaloo riwaayadka xadiidku sheegayaan mar kale inuu ismaaciil yimi nebi ibraahim mar saddexaad inuu kusoo noqday dhulkaasi. marka saddexaadna wuxuu yimi isagoo ismaaciil gabadh kale uu guursado, sii hore u furay. gabadhii kale markuu la hadlayna ee uu xaalkooda weydiiyeyna waxay ku tidhi waa fiican nahay, iyana fariin buu u faray oo wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhahdaa inankaygu waa tegaya isagoo maqanagana buu yidhi oo safar uu jiro. fariin labaad yani gabadhan hayso waraabuu uga tegey. mar afraad bay taariikhdu sheegaysaa, taariikhda sugane lahayo axaadiisiya qur-aanka oo ah markuu kacbada dhisayey. ismaaciilna nin weyn ahaa, isaga iyo ismaaciil markay kacbada dhisayeen 4 jeer bay yidhahdaan buu nebi ibraahim kusoo noqnoqday meesha iyo markaa hore uu kaga tegey. taariikhda carabeed cumuuman markaaynu tilmaamno nabigu calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ka tirsan yahay siduu axaadiista saxiixa ayba ku sugnaatay. ilaahay wuxuu doortay buu yidhi nebi ibraahim, ibraahimna wuxuu doortay wiilkiisa ismaaciil ahaa, ismaaciilla kanaana laga doortay, kanaanana quraysh baa laga sii doortay, qurayshna reer banu haashim baa laga doortay, reer banu haashimna anaa laga doortay buu nabigu laha calayhi salaatu wasalaam. markaynu taariikhda carabeed cumuuman eegno waxay iska koobnaayeen qabaa'il bay ahaayeen. 3 meelood baa iyada boqortooya ka jiri jirtay, boqornimo loo caleema saaro. 3 meelood ayay iyaga ka jiri jireen. waa boqortooyadii yeman ka jiri jirtay ee gabowday, boqortooyada yeman oo waktiyo kala nooca soo martay. taariikhaha laga sheegaana runtii taariikho saa usii sugan maaha, laakiin ilaa 4 boqortooyo oo kala dambambeeyey baa la sheegaa oo muddo intaasoo qarniya intay socotay inay tirtirantay. kuwa ugu dambeeyuun yeman waa ximyar qabiilka la odhan jiray oo kamid a qaxbaaniyiintaasi
say lahaan jireen boqortooyadoodii macruufka ahayd ee ay lahaan jireen. boqortooyinkaa wuu sii dambeeyey oo culamaa taariikha kusii tilmaamaan inay ahaayeen kuwii markaasi ugu dambeeyey ee ka jiri jiray wadanka yeman, oo lasoo gaarsiiyey inay yihiin kuwii ay ka dhasheen markaa dunawas nin la odhan jiray yahuudiya mar kamida intuu qabsaday in najraan oo christan ahaan jirtay ee lagu laayay. waayo culamada qaarkood u nisbeeyaan inay tahay sababtii ay kusoo degtay qutila asxaabi lukduud annaari daati lwaquud. laakiin xal markaan soo duuduubno yeman boqortooya ka jiri jirtay, xiira meesha la yidhahdo ciraaq kamidana boqortooya ka jiri jirtay, shaamna boqortooya ayaa ka jiri jirtay. xijaas iyadu marnaba boqortooyo caynkaasi kama jiri jirin, imaarooyin baa ka jiray baa la iska yidhaahdaa, laakiin boqortooyo rasmiya kama jirin. marka aynu soo qabanno magaalada maka oo ahayd magaalada aynu odhan karno taariikhda islaamiga ku weyn una baahan waxoogaa yar inaynu ka sheegno iyo qaab nololeedkeedii. markiis aynu wada naqaano waa magaalo ku ooli jirtay meel buuraleeya oo laba buurood hareeraad kaga wareegsan yihiin oo sida bil oo kale ay ku yihiin. quraysh baana degtay meesha tan, gaar ahaan qusay ibnu kilaab ninkii la odhan jiray oo kamid ah quraysh nabiga caleyhi salaatu wasalaam kuwa ku abtirsada kamid ah. qusay ibnu kilaab ayaa degay meesha tan. qusay ibnu kilaab waxay dhahdeen waa ninkii koowaad ee awooda inuu googooyo dhirta kacbada iyo meesha xaramka ka baxda lama goyn jirin, dadkuna inaan la goyn bay uhaysteen, haddana sharcigu saasuu qabaa. laakiin qusay ibnu kilaab baa waktigiisii gooyey baa la yidhi. markuu googooyey ayuu dabeetana soo dejiyey xaramka gudihiisii. markaas buu quraysh u kala tilmaamay meelo ay kala degdegto oo inay xaggan in kale xaggan dejiyey in badan uu dejiyey. quraysh maalqabeynteed iyo dadkeedii hantiilayda ahaa inta badan bufxaa maka ayay degi jireen. bufxaa maka waa inta godan baa la yidhaahdaa ee kacbaduna ay agteeda ku taalo. marka aynu eegno maka iyo maamuladeedu say sii kala dambeeyeen, akhiiran waxaa qabsaday nimankaasi quraysh la yidhaahdo oo wareeko yahay ninkaasi la yidhaahdo qusay ibnu kilaab. hareeraheedana waxaa deganaa qabaa'il kale oo ay ka mid yihiin kanaana oo ay ka tirsantahay qurayshi, waa laf kamid ah qabiilkaasi kanaana la yidhaahdo. qurayshi markaasi waxay noqotay dad isku dayey in ay tijaaro adeegsadaan. baamushtar ayuu ahaa awoodooda ugu weyni. magaalada maka la yidhahdana si fiican ayay u degeen. qabaa'ilkii hareera ka deganaana waxay la galeen heshiisyo nabadgelyeed, dabeetana tijaaro ayay samaysteen, marna u baxda shaam iyo ciraaq, marna xaggan yeman u baxda. waxay u fakereen tijaaradoodaasi say u suurto gooli lahayd, dabeetana waxay u sameeyeen wax iilaaf la yidhaahdo oo ah wadooyinka ay tijaaradooda sii martay inay la yeeshaan qabaa'ilka dege heshiisyo nabadgelyo la galaan, isla markaasi inay wax cashuuroo kale ah oo ay iilaaf ku bixiyeen inay ka siiyaan, isla markaasina inay adeegsadaan xataa nimanka madaxda ah ee qabaa'ilkaasi u madaxda ah tijaaradooda inay saham ka siiyaan, sheer inay kala qayb geli karaan inay siiyaan si tijaaradooda u socoto. camalkaasi masalan heshiisyada la gelayo ee ku saabsanaa tijaarada quraysh ay xooga ku noqotay. ninka isna sameeyey waa hashim ibn cabdimunaaf oo isna kamid ah awowyadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam. yani qusay waa awowyadii hore ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo ninka quraysh maka dejiyey. tijaaradooda ninka isugu xidhayna waa hashim ibn cabdimunaaf oo isna kamid ah nabiga caleyhi salaatu wasalaam awowyadii. tijaarada yani iqtisaadka maka markaynu soo duuduubno wuxuu u salaysnaa kow qaybu tijaaray ahayd. sanaacada ama farsamada waxaa la yidhahdaa aad bay ugu yaray, waxoogaa hubkay samaysan jireen iyo daryaha iyo waxoogaa sariiraha iyo guryaha waxaa caynkaasi kamid a. in xoola raacataana way lahaan jireen iyo in ugaadsada, laakiin asaaska dhaqaalada maka lagu deganaa waxay ahayd magaalo tijaareed. magaalo baamushtar bay ahaan jirtay. maadaama ay magaalo baamushtar ahaan jirtay, baamushtarkana asal uu yahay nabadgelyo, quraysh waxay ahaan jirtay meel degan, meeshay degantahay maka ahi. dad badanna waxay kula jirtay mucaahadaad ama heshiisyo, waxaanay ahayd in tijaarada waxa ugu badan ee ka shaqayso. heshiisyada ay qabaa'ilka kale la gashayna waxay u fudaydisay in tijaaradooda ay tijaara duwaliya noqon karto oo ay duwalka kale iyo dhulka kale la bayac mushtarayn karaan. weliba dagaaladii ka dhexeeyey persia
iyo romaniska ama labadii dawladood oo waaweynaa markaa jiray ina waxay carqalad geliyeen dariiqii iyaga udhexeeya tijaariga ahaa ay isku xidhayeen yurub ama waqooyigaas oo dhan iyo asia dariiqa isku xidhaa inta badan sham iyo ciraaq iyo dhulkan baa la mari jiray dagaaladii labadaa dawladood udhexeeyey baa xidhay taasi waxay sababtay baa laku yidhaahdaa in can ariiqi marka uu aada u xoog bato tijaaradu inay marto oo matalan indiya iyo dhulka alaabta laga keeni jiray waxay iman jirtay baa ladhaha babbay soo mari jirtay yaman bay iman jirtay dabeetana yaman bay maka ka tegi jirtay makay ka qaban jirtay markaasi sham iyo xagga romanisku ka taliya saasi daraadeed waxay noqdeen dad isku xidha mujtamacaad badan oo tijaari ah ayay maka ahayd reer makana maadaama ay tijaaradaasi in badan ka shaqaynayeen waxay noqdeen dad maalqabeen badan uu ku jiro oo reer maka rag baa de kibirku gaarsiiyey weelkooda uu dahab wax ku cabi jiray weelashay wax ku cabaan dahab ay ahayn cabdillahi ibnu jadaan nin la oran jiray koobku wax ku cabaa dahab buu ahaan jiray marka qurayshii waxay yeelatay tabaqaad kala sarreeya tabaqo tijaarada raasulmaalka weyn haysata oo heshiisyana kula jirta dawladaha ama qabaa'ilka iyo wadooyinka dadka dega oo weliba tijaaradoodu qaab sharikaad oo kale ay u dhisan tahay oo ah faasilo aada u badan la israaciyo oo dadkao dhanna shares la siiyo laga qaybgeliyo inay tijaaradaasi ka wada qaybgeli karayaan oo dadka danyarta aan wax badan haysan ribo wax ku siista nidaamka ribowga bangiyadu isticmaala iyo dabaqaad aan waxba haysan oo aada u fuqara ah oo aada u waxtar aan waxba haysanin labada kooxoodba way deganaayeen dekadaha isticmaali jireen inta badan meel shacbiya la yidhaahdo ayay ahaan jireen oo ay dekadan jideymka taqaanina macruufka ahay waxay bilaabantay baa la yidhaha khilaafadii cuthmaan radia allahu canhu ayay bilaabantay markaasi maki waxaan leenahay cumuuman waxay ahayd magaalo baayo mushtar oo xaggan xabashida iyo afrikana waxaa ka iman jiray bukuurta iyo dhirtan la shita iyo baalgoroyeedka iyo maxaa la yidhaha foolmaroodiga iyo hargaha iyo ninka madoobe la adoonsado xagga shaamna waxaa ka iman jiray baa la yidhaahdaa inta badan waxa la cuno daqiiqda iyo sareenka iyo saliidaha iyo khamriga iyo cinabka iyo waxaasina xagga shaam bay uga iman jireen xaggan indiya ama indiya dhankeedana iyaga waxa uga iman jiray inta badan looxa iyo filfisha iyo bahaaraadka yani waxyaabahan yarare raashinka lagu darsado tirada badan leh dharka iyo xariirta iyo waxaan la tolo weelasha waxaasina inta badan waxay ka iman jireen dhanka kan indiya tijaaradaas bay udhexeeye siyaasada quraysheedna cumuuman waxay ahayd siyaasad ku salaysan deganaanshiyo iyo in loo dhimriyo iyo heshiisyo in la galo oo may ahayn dad dagaal badan taarikhda quraysh waxay idhahdaan qabla intaanu nabigu iman calayhi salaatu wasalaam ee aanay dagaalka uxidxidhan horteed taarikh ahaan waxaa loo hayaaba 4 dagaal waxay galeen 4 dagaalna waa xudud ilfijaar 4 la oran jiray 4 dagaalna inta badan waxaa la yidhaha munaawashaad iyo reer baaba iska ahaayeen yani dagaalo xataa aada u waaweyn may ahayn ee dagaalo waxoogaa loolama yaryaro aan saa usii badnayn buu ahaa saa daraadeed waxaa la yidhahdaa qurayshi intan ka horeysay islaamka may ku badnayn dagaalku siyaasadooduna waxay ku salaysnayd in dadka heshiis iyo tijaarada in shirka laga siiyo iyo lacag iyo qaabkan fudaydka ah ayay ku salaysnayd weliba waxa kaloo siinayeyna mudnaan kale waxay deganayd markas diiniyo dadku diin ahaan buu uga dambeeyey markas diiniyo ayay deganayd oo dee diintii nebi ibraahim laga dhaxlay wixii kasoo hadhay meesha uu sii yaalay inkastoo markii dambe waktigii ay khusaaciyiintu ka talinayeen meesha tan ay diinta qalbeen gaar ahaan ninkii la odhan jiray camar ibn luxay alkhusaaciy oo axaadiista saxiixiiba ay kusoo aroortay inuu nebigu lahaa kaa waxaan arkay isagoo naar xidihiisa ku daba wareegaya buu nabigu tilmaamaya yani ahlu naarku kamid yahay ninka kani waa ninkii koowaad ee asnaamta keena maka sanamkii hubal la odhan jiray buu kasoo iibsaday sham dabeetana tuurta kusoo qaatoo keenay kadibna asnaam badan baa la keenay ilaa iyo kacbada agagaarkeeda uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka dubiyey 360 sana 360 sanam oo la caabudo sanamadaas iyo waxaas way tiro bateen qaarkood dhagxan la qoray bay ahaayeen qaarkood xataa waxay ka ahayd meel yaroo buuro taagan oo dhagaxun ku urursan yihin masalan sanamadii asaas iyo naaila iyo waa kuwii marwe iyo safo iyo meelaha yaalay iska kor yaroo kuusan oo dhagxan saarsaaran tahay ayay ahayd sanam caabudkanna waxa kalena dee bukhaariga sheegaya xadiiskii aburaja al-otaradi saxaabigii la oran jiray uu tilmaamayey waa kii sheegaya yani dadku say sanam caabudkan iyo waxa kan xad bay ka gaadheen
ulahaa markaanu weyno xataa dhagax intaanu ciid isku ururinaabanu neef adiga ku lisnaa buu yidhi markay isku dhegaan caanaheedaado kale marka lagu liso isku dhego ciidda yar ay sii dhagaxoo kale weerkaasaabaanu sanam ahaan u caabudi jirnay yani xad markaa xataa dhagax la waayo in caana lagu lisi jiray ciidda inay si yaro dhegto uun aad waxaa u batay asnaamtaasi iyo cibaadaadkaasi la halmaala sanamadaasi markaynu usoo noqono magaalada maka iyo dhismaheeda iyo qaabkay u salaysnayd waxaynu leenahay kacbada ay deganaayeen baa dad badan kaga dambeeya oo qurayshi manzilo ay ku haysatay markaynu eegno maka iyo dadkii u kala dambeeyeyna jurhum ayaa taariikhda inta la hayo kuwii ugu horeeyey ahaayee nebi ismaaciil ba uu ugu yimi agaarkooda iyagoo degan dabeetana khuzaaca dabeetana quraysh baa degtay quraysh weliba qusay ibnu kilaab ninka la yidhaahdo markaynu eegno taariikhda maanta la hayo kama badna masalan adabka jaahiliga carabeed iyo waxaa marka la eego ilaa 150 sanadood qabla alislaam taa macnaheedu waxa weeyaan 400 iyo xoogaagii meelahaasi ay u badan tahay taariikhdu wixii ka dambeeya si fiican loo hayo ee meesha tan taalay waxaana bilaabay inuu ninkaasi qusay ibnu kilaab la odhan jiray markuu meesha tan degay qusay ibnu kilaab markuu dhirtan googooyo quraysh meesha dejiyey oo inta maalqabeenkiina magaalada meesha gudaheeda ay sii deganayd gacalladeedana inta aan waxaysan baa inta badan deganayd wadaaiftii diiniga ahaydna isaga ayaa reerkeeda u qaybqaybiyey ama caruurtiisii qusay ibnu kilaab waxa ugu weyne uu meesha tan ka sameeyey waxaa kamid ahaa daaru nadwa oo ah guri ay qurayshi ku shirto oo laysugu yimaado oo taladeedu ka go'do gurigaasi runta ay dhahdaan waa waxyaabihii saacido inay markii ahaato meel nabadgelyeed ka salaysan waayo mar haddii la hayo meel waayeelku intuu isugu yimaado lagu shiri karo arrinta lagu gorsan karo qadiyad kastoo dhacda mar haddii ay soo gaari karto waayeelkoo loo soo gaadsiin karo waa arrin inta badan nabad iyo xal ku dhamaan karta qusay ibnu kilaab marka waxyaabaha caanka uu sameeyey waxaa kamid ahaa daaru nadwa meesha la yidhaahdo oo uu ka sameeyey guri yar oo xagga albaabka kacbada u furan oo ay odayada quraysheed oo dhama fadhiistaan oo lagu shiro waxaa kamid ahaa inuu liwaaga quraysheed isagu markaasi gacanta ku dhigtay oo inaan dagaal geli karin qurayshe ilaa iyo liwaagan ay hayaan mooyaane waxaa kamid ahaa yani xijaabada oo ah furahan kacbada in iyagu haystaan iyo sadanada iyo cidda wadaagada iyo intan oo dhan in iyagu gacanta ku hayaan waa xijaabadii oo kamid ah rifaadada waxa la yidhahdo rifaadat lxijaaj oo ah xujaajtu markay yimaadaan waxa aan waxhaysan in diyaafo loo sameeyo meel ay wax ka cuni karaan dadkan soo xajeeya xajku waa cibaadaadkii uu ka tegay nebi ibraahim marka alayhi salaam ilaa nebi ibraahim taanu baa loo soo xajayay marka xataa intaan nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam iman waa la xajayay laakiin xajkii waa la qalday oo shirkiyaad iyo waxaan diinta kamid ahayn lagu daray ayaa joogay marka xujaajta iyo dadkan isugu yimaada ayuu wuxuu samayn jiray diyaafa meel xawd ay ka caddaan oo biyo uu macaaneeyo timir iyo zabiib uu ugu daro iyo cunno la siiyo wuxuu sameeyey yani siqaayat lxaajka ribada xijaabada waxaasoo dhanna isaga gacanta ku hayay baa la yidhahdaa iyo aruurtiisii qaar kamida buu gacanta usii geliyey masalan daaru nadwaha uu sameeyo kaleba la yidhaha albaab bay lahayd xagga masjidka kacbada usii jeeda waa meeshii umuurta dagaalka iyo nabadda iyo waxaasoo dhan lagu gaamin jiray waa meesha ay ku samayn jireen cuquudoodii masalan wixii heshiise ama guur ha noqoto ama heshiisyada dhaqaale iyo waxa la kala baamishtarka socda ha ahaato waxaana fadhigi jiray baa la dhaha mala-ul qowm madaxweynaynta reerka nin 40 ka yar ma fadhiisan jirin bay sheegaan culamada taarikh markay ka warwaramayaan daaru mashhuura bay ahayd runtii qusay ibnu kilaab ninkaa la yidhaahdo quraysh ka tirsanaa magac weyn buu ku yeeshay quraysh dhexdoodii caadaadkii iyo dhaqamadii iyo wixii uu gooyay qurayshna diin bay ka dhigteenba in sidooda loo raaco aan waxba laga qasin ama ha noqoto siduu ugu qaybqaybiyey arrimahaasi maamulka ah ama ha noqoto wixii caadiya dhaqan uuga tegey kalkii waxay ka dhigteen in wax diin oo kale ah oo sideeda loo ilaaliyo ahaan nimanka orada quraysh ninkaas wixii uu go-aamiyey iyo go-aamadii waagaa la qaatay sideeda ayaa loo qaatay isaga dabadiina waxaa soo baxay runtii rag kamid ah abnaadiisii ama dadkiisii oo kamid yahay hashim ibn cabdimunaaf oo kamid yahay almualib oo kamid yahay cabdilmualib oo kamid yahay aba aalib oo dhammaantood aan odhan karno waxay sii kala dhaxleen inay sii haystaan wixii uu aabahood ka tegey ee ku saabsiibnaa qadiyadaasi maamulka masalan hashim ibn cabdimunaaf ibn qusay yani qusay waa awowgii waa ninkii
bilaabay heshiisyadana in lacag loo qoro dadka wadooyinka ee tijaaradooda ay martaan iyo iraadka waxaan loo bixiyey ee ka dhigay tijaaradii Quraysheed inay noqon karto mid duuliya oo ka baxsan meesha yar oo dhan waana ninkii u qoray waa laga ceelal badan buu sameeyay reer Makka ay ka cabaan walaalkii oo Al-Muttalib ahaa ayaa ka dhaxlay markuu isagu dhintay qabsaday Muttalib wuxuu ku caan ahaa baa la yidhahdaa nin dulmiga neceb buu ahaa nin akhlaaqda fiican dadka fara buu ahaa nin cibaado badan buu ahaa Quraysh markaa oday ay ka dambeeyaan buu ahaa waxaa ka mid ahaa Haashim inankuu dhalay ee Muttalibna adeerka u ahaa ee loo bixiyey Cabdilmuttalib magaciisa caadiga Shayba baa la odhan jiray oo waxaa la yidhahdaa Haashim ayaa qabtay baa la yidhahdaa Haashim markuu guursaday wiil dhalay ayuu ka tegey wiilkii uu dhalay wuxuu kaga tegay yani isagoo yar ayuu Haashim dhintay dabeetana odayga Muttalib baa waa dambe loo sheegay isagoo wiilkii 6 jir meelaha maraya ama weynaaday wuu doono uu soo qaaday markii uu keenayna carabtii ama Quraysh waxa aragtay wiilkan yar uu sito dabeetana wiilkii waxay kaga bixiyeen war waa adoon yar oo soo keensaday Cabdilmuttalib uu bixiyay yani magaciisa kii Shayba buu ahaa Muttalibna waa adeerkii oo Haashim la walaala oo soo koriyay markaas oo keenay dabeetana Cabdilmuttalib uu kaga caanbaxay Cabdilmuttalibna waxa runtii nin aad ugu caanbaxay beed oo Shaybat al-Hamdi bay markay doonaan nooran jireen waanu kala ku caanbaxay waa ninkii uu qoday mar labaad ceelkan Zamzamka yani Zamzamka Nabiyullah Ismaaciil ayaa ka tegay laakiin waxay yidhahdaan Khuzaaca barigii meesha la isku dilbilay ee arkeen inay ka baxayaan bay aaseen ama dabooleen ama tirtireen marka meesha waa la waayey waxaa la sheegaa inuu riyooday Cabdilmuttalib ilaa 4 jeer uu riyooday markii ugu dambeysayna in loo tilmaamay meeshay tahay riyadaasi sanad xasan bay runtii ku soo arortay ilaa Ali ibn Abi Talib ka soo arortay dabeetana ceelkan buu qoday ceelkii Zamzamka markuu qoday ee soo saarayna waa muran dambe ka yimi oo Quraysh ba ku qabsatay Quraysh markay ku qabsatayna qaab bay u garnaqsadeen ala kulli xaal insha Allah waa laga yaabaa inay mar dambe nagu soo noqoto waxaan uga jeednay intan aynu ka waramayno dhan umuuman inaynu ka warano qaabkay u dhisnayd magaalada Makka iyo sidii loo joogay laakiin taariikh ahaan marka laga waramayo taariikhda had iyo goor waxay ka bilaabaan nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii maadaama taariikhdeenu dee nabiga uunay ku salaysantay calayhi salaatu wasalaam inta ka horeysa waxaad moodaa inaan wax badan laga sheegin ama wax badan dadku ka odhanin waxa ugu badan laga waramaa inay tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhalashadiisii mararka ugu badan waxa kale laga waramaa waa Zamzamka iyo sidii uu qodmay iyo in la tilmaamo maasirtan reerkii nabigu ka dhashay inay reer meesha magaca la ku ahaayeen hadduu yahay odayii Qusay ee magaalada deegaankeeda iyo waxa kan waxaynu naqaanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga waramayo nasabkiisa nasabkiisu 3 qaybood buu u qaybsamaa qayb culamada taariikh ama culamada siira dhammaanteed way isku waafaqsan yihiin qaybna aad bay isugu khilaafsan yihiin qaybna iyada waxa laga sheegaa waa iska war ku tirkuteena 3 qaybood aynu tilmaamayna waxa weeyaan qaybta ilaa Adnaan inta la gaarayo Adnaan inta la gaarayo oo 22 awow ka tirsan 22 ka tirsan culamada taariikhda soo warisa dhammaantood way isku wada waafaqsan yihiin يعني نبي قال له رجل محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر فهر وانك قريش الله يدعوه فهر مركزي طوان بو كصوت الصدى حاجة دنبع عدنان فهرنا طوان كلايسيك على الصدى كوبي الله وعطان كاس يقول الاسكولة وافق سيهي وحانا وبلانتين صادقين marka Adnaan laga bilaabo ilaa iyo nabi Ismaaciil la geeynayo aad ba khilaafadan u jira yani taariikh kala badan oo aad u kala gadisan oo aan isku xidhnayn ayaa markaas la tiriya laga bilaabo weeyaan Adnaan ilaa iyo inta la gaarsiinayo Ismaaciil ama Ibrahim
xagga kasii dambaysanada markaa kasii muran badan inaad nebi ibraahim u abtirisay ilaa aadam aad gaadhsiisaana kutubu taariikh ama kutubu siira intaba way qoraan. masalan waxaan filayaa inay cadnaan masalan iyo ismaaciil meelahaas ilaa 40 baan u malaynaya inay udhaxaysiiyaan, laakiin intaa dambe oo dhami waa iska murankeedu iska tiro badan yahay, si qurana uma wada tilmaamna. markaynu hore uga soconno inta tan waxaynu u gudbi karnaa waxyaabaha ugu caansan. waxaa kamid ah biiru zamzamka iyo qodistiisa oo aynu nidhi waxa ugu asaxsan riwaayadda ibnu isxaaq laga warinayo ee caliy ibn abi aalib gaadhaysa sanadkeeduna xasan yahay, ee sheegaysa inuu ku riyooday cabdilmutalib oo marafaadkii loo tilmaamay. ama aahaarta sheegaysa wixii uu ka soo saaray kullaha waa riwaayad daciifa bay yidhahdaan. yani waxyaabo badan bay sheegaan uu meesha ka soo saaray oo ceelka markuu qodayo calaamado loo sheego waxyaabo ka soo saaray. kuwa aahaarta kusoo aroortoo dhami waa daciif, wax badanna runtii ma sheegayaan. asarka labaad inta badan la sheegaa waa qisadii waktigii uu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam ee caamulfiilka ah. qisat lfiil iyada waxaynu naqaanaa qur-aanka sugay, alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi lfiil, qur-aanka ayaa sugay. culimada taariikhda qortaana waxay ku tilmaamaan inay ahayd 570 ama 571 miilaadiyada, tan imika 2001 maraysa. marka 570 qaarkoodna waxay ku tilmaamaan 571 meelahaas inay ahayd. qisadaas duuduubkeeda oo dhan markaynu isu soo geynana waxa ay sheegaysaa yani bacdi saxaaba ayaa laga warwariyaa, laakiin saxaabada laga wariyey waa saxaabo yaryar oo iyaga iyo qisada tan ilaa 50 sanadood meelahaasi ay udhaxaysay. laakiin waxaad garan kartaa un aahaar ka hadhay oo qisadan la wada yaqaan inay jirto. masalan caaisha radiallahu canha waxay sheegaysaa inay soo gaadhay, yani waa sanad saxiix, sanad xasan oo kusoo aroortay. caaisha oo kale masalan waxay sheegaysaa inay soo gaadhay oo ay aragtay iyadu maroodigii abraha ninkii waday iyo kii saais ka wahaye maydhmaydi jirayba, labadaasoo indhoolayaal magaalada dawarsaday inay soo gaadhay. yani maroodiyada nimankii wareydama kamida weeyaan oo indhoolayaal ah oo dawarsada inay soo gaadhay. masalan saxaabi yaroo la odhan jiray qubat ibnu shaym baa filaya, isla wuxuu sheegayaa inuu soo gaadhay inay hooyadii tustay isagoo yaroo caruura, hooyadii inay tustay saaladii uu dhigeen maroodiyadii nimankaasi wateen oo midabkeedu xataa isbedelay. laakiin isaguna caamulfiilka waxoogaabuu ka horeeyay, yani wiil yaro waxoogaa jira sanawaada ayuu ahaa. isna waa tirmidi baa warinaya. calaa kulli xaal faraain badan baa tilmaamaysa. ama qisadu siday u dhacday khulaasat lqowl waxaa la sheegaya nin abraha la odhan jiray oo xabashi ahaa, markay dhul badan sameeyeen oo isku dayeen carabtan kusii socota kacbadan uxajisay in laga duwo ay u taag waayeen, ayuu meel sameeyey. meeshii waxay soo wariyaan riwaayadkaas inkasta aanay xooganayn in nin carbeed kiniisad intuu sameeyey kiniisadii wuxun kaga sameeyey. calaa kulli xaal wax kastaba ha ahaatee ninkan abraha la yidhahdaa wuxuu ku talagalay inuu duulo oo uu soo dumiyo. abraha markaa waa nin xabashiyeed oo yaman xukuma. xabashidu 2 jeer ayay yaman kolba gumaysatay, marka waa mar kamida kooxda tan abraha uu joogay. waa markii dambe ayaan rajaynaya. abraha wixii kasii dambeeyey waxaa qabsaday yaman persia. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay ee nebinimada lagu soo dejiyey bershiyan baa haystay, yaman eeraan baa haysatay. waktiga ay xabashidu haysatay meesha tan ayuu ciidan diray, ciidankaasoo ugu talagalay inuu kacbada soo dumiyo. laakiin ciidankaasi markii uu soo gaadhay maka duleedkeeda waa bilxas meesha la yidhaha, markuu soo gaadhay baa la yidhahdaa bay fadhiisteen maroodiyadii. marka xagga kacbada loo dareeriyana way fadhiistaanu, haddii jiha kale loo sii daayana wuu iska dareeraanu. meeshii iyagoo joogana ilaahay baa kusoo itixaamay tayran ababil tarmihim bixijaaratin min sijiil, shimbirahaasi duulaya ee dhagxanta la dhacaya ayaa yimi. shimbirahaasi dhagxantii bay dadkii la dhaceen, dadkii badhmeeshii bay ku dhinteen, qaar waa xanuunsadeen. abraha kan waxaa la yidhahdaa samco isagoo ku dhintay bay yidhahdaan, isagoo gooba iyagu yimo xanuun kala ku dhacayo dabeetana meeshaasu ku dhintay. qisadaasi marka lasoo duudubo waxa ay sheegaysaa in la jebiyey un abraha iyo kooxdiisii sida qur-aanka naskiisa ku cad.
nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tilmaamaa inuu dhashay sanadkaasi caamulfiil. waxaa qisooyinka meesha la tilmaamo kamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihii cabdillaahiya cabdilmutalib bay waxay sheegaan inuu nadaray. nadarkaana ibnu cabaas baa soo arooriyey, sanad saxiixa kusoo saaray inuu nadaray cabdilmutalib. waktiga uu nadaray riwaayad iska daciifa kusoo arooray, laakiin marka la isku daro cala kulli xaal mursal saxiix sanadkiisu xasan yahayna waa kusoo arooray. waxa iyaduna duuduubkeeda sheegaysaa uun cabdilmutalib markuu zamzamka helay qurayshtii kale ku qabsatay. qurayshtii ku qabsatay waxaa lagu heshiiyey in la kala garbaxo. riwaayaadkaasi qaar ka mida waxay sheegayaan inay qabteen sham iyo yaman xaggaa in laysla qabtay, kaahinad joogtay habar falalawadii inay soo kala saarto. dabeetana dhexda markii lasoo socday in biyihii madheen. riwaayaadka qaarkood waxay leeyihin biyihii oo dhan baa madhay, qaarna waxay leeyihin isaguma biyi ka madhan iyo intii la socday ee intii haysatay biyi kamay madhan. markii biyo la waaye kadibna ama fardihii uu fuushanaa mid kamid ah adinkiisu meeshuu ku dhuftay baa ilaahay biyo ka siiyey. riwaayad kaloo daciifana waxaan rajaynaya inay sheegayso roob baa daay. mid kastaba ha noqotee biyaa la helay. dabeetana dadkii haraadka u baktiyi gaareen mar labaad unbaa ilaahay cabdilmutalib biyo ku siiyey. deetana waxay dhahaan war ninkan mar dambe alla biyo nagu siiyey kuwii hore waxba yana ku qabsanine haloo daayo. zamzamkii saasaa loogu daayay baa layidhi. waxay yidhaahdaan caruur badan markaa muu lahayn bay leeyihin lagu haystay zamzamke. wuxuu nadaray hadduu xoogaysto ilaahay 10 wiil siiyo war iska dhicin karo inuu 10kaa mid kamid a ilaahay u sadaqadeeyaba. 10kaa mid kamid ah inuu ilaahay u sadaqadeeyo. waxaa la yidhahdaa 10kii wiil baa ilaahay siiyey. dabeetana nadarkii wuu qori tuuray baa la yidhahdaa. qorituurkii wuxuu ku dhacay cabdillaahi. dabeetana cabdillaahi inuu gowraco way ku adkaatay. dadka bar waxay qisaska qaarkood sheegaan in falalawadi uu geeyo iyadoo ay tidhi u sagayo 10 halaad bay diyadu ahaan jirtay, isagii 10 halaad u qorituur oo cabdillaahi ku dhacday, tidhi 10 kaloo ay cabdillaahi ku dhacdo 10 kaloo boqol isaa ku harsaday. laakiin riwaayada fiicani iyadu waxay sheegaysaa inuu 100 iyo cabdillaahi loo qalin tuuray, yani loo qori tuuray, qurca loo sameeyey. cabdillaahi iyo 100kaa markii loo qori tuurayna 100kii halaad ayay qurcadii ku dhacday. markaa nadarkii wuxuu ku dhacay 100kaa halaad la gowraco, cabdillaahina la sii daayo. cabdillaahi markaa wuxuu u guuriyey inan aamina bintu wahab la odhan jiray. tafaasiisha sida loogu guuriyey iyo arrimaha ku saabsan kumay soo aroorin iyaguna dariiqa saxiixa. asxaabu taariikh yani riwaayadaadu tiro badan bay iska soo arooriyaan. cumuuman waxaynu leenahay uun gurigaasi gabadha wuu guursaday. dabeetana wuxuu qabtay madiina. riwaayadan rajaynaya inay xasan tahay baa sheegaysa inuu u diray timir inuu uga soo iibiyo oo timir ka doono. cabdilmutalib uu uga diray madiina. markii uu madiina yimina wuu ku xanuunsaday cabdillaahi. markuu xanuunsadayna uu geeriyooday. wuxuu geeriyooday riwaayadka saxiixisay sheegayaan iyadoo uurka uu ku jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam. culamaa taariikh qaar baa qisas badan oo kale soo arooriya wakti inuu nabiguba dhashay intan saro inuu jiray waxaa, laakiin inta badan waa iska wada daciif. waxaasi insha allah waxaa saxiixa inuu uurka isagoo ku jiro uu dhintay nabiga aabihii calayhi salaatu wasalaam. culamaa taariikhna waxay wariyaanba islaantii markaa gabayo baroordiiqo ay tirisay oo ay odaygeeda haddana dhintay u tirinaysay. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhashay markaasi maka. dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam war badan oo ustuura baa laga sheega, warar badan oo aan waxba ka jirin. laakiin waxaynu isku dayaynaa waxaas aan waxba ka jirin tirada badan loo dhan inaynu iska dhaafno. nabigu calayhi salaatu wasalaam magaalada maka ayuu ku dhashay. sanadkaasi la yidhahdo caamulfiilka. caamulfiilkaasi oo u ahaa baynu odhan karnaa irhaas, yani nabiga calayhi salaatu wasalaam alla wuu sii muujiyey oo yani basharkao dhame qadiyaday sii fahmeen oo warkeedu dunidao dhan uu gaadhay oo aada uu gaadhay. qaabkii uu nebigu u dhashay waxa ku soo arooro oo dhami inta badan waa wada daciif iyo mawduuc iyo kadaab. waxa ku jira waxaan khayr badan lahayn. allahuma ilaa xadiid xasana jira, xasan ligayrihi weliba isaguna ah,
oo sheegaya in ay ku riyootay nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii nuur ka soo baxay oo qusuur shaam oo dhan ifiyey. kaasi waa insha allah xasan ligayri. ama waxa laaliya waxa kale ay ku soo arooriyaan ama ha noqoto raabkii uurka nabiga ay uu siday oo uu fududaayo kambuu ahaa iyo waxaan may dareemi jirin. waxaasoo dhan waa iska uun waxaan sanad badan ama xoog badan loo haynin. waxaa lamid iyaguna kuwa sheegaya markuu soo dhacay nabigu alayhi salaatu qaar baa uu soo dooday oo gacmuhu dhulka ku taay. laakiin waxaasoo dhan waxba insha allah waxba nabiga ku kordhin maayaan. yani waxay dadku jecel yihiin in la buunbuuniyo, laakiin buunbuunis risaalada u ah iyo wixii alla ku ammaanay siduu dhashay wax badan waxba ku kordhin maayaan. riwaaya daciifa sheegay isagoo gudan baabu dhashay, iyada lafteedu waa daciif. qaar baa sheegay malakul jibriil baa guday, iyada lafteedu waa daciif. qaar baa sheegay inuu cabdilmutalib guday, iyana waa daciif. laakiin waa iska macquul in la yidhaahdo cabdilmutalib maadaama uu isagu hayay oo aanu aabihii uu dhintay oo awgii aho isagu soo korinayay, inuu isagu gudo oo xanaaneeyo oo taas waxa macquul oo sida caadiga ah waafaqsan. ama waxa kale la sheegayo dhami waa wada daciif, waxba kama jiraan. waxaa kaloo lamida waxyaabaha axaadiista daciifka tirada badan ama mawduuca kadaabinta badan ku jira lagu soo arooriyo. jin baa yeedhiyey oo wax sheegay, ama sanamadii iyo macaabidii wataniyiinto dhan baa daadatay, ama boqortooyadii kisre iyo waalkeedii baa soo dhacay, ama bukhayradii yareeye saawe la odhan jiray oo biyo laga waayey, ama dajla. yani wax badan bay sheegaan, laakiin kulla haadihi wax kasoo qaad male. saasi daraadeed waxaasoo dhan waa iska dhaafaynaa. waxaynu ku daynaynaa inuu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam. hooyo ilma caadiya sida u umushayna in loo umulay. in nabigu calayhi salaatu wasalaam taariikhdii uu dhashay waxay culamada taariikhda qora isku wada waafaqsan yihiin waktiga la yidhaahdo caamil fiil, laakiin maalin muu ka dhashay. waa qadiyad iska muran badan. maalan saaxib raxiiq almakhtuum wuxuu isagu leeyay mid waa la isku wada waafaqsay axaadiis saxiixa ku soo arooray inuu nabigu isniin dhashay, iyadoo taa muran kuma jiro. inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin isniineed dhashay iyadoo wax murani kuma jiraan. axaadiis saxiixina waa ku soo aroortay, waana saas bay ku sugan tahay. sanadkaasi caamul fiil inuu dhashayna waa inta badan culamada taarikhda isku wada waafaqsay. laakiin goormay ahayd waxa mashhuura oo aada u caanbaxday oo dadku inta badan u haystaa inay tahay 12kii rabiicul awal oo sida ugu mashhuursan, laakiin wax ku asaxay ma jiraan. ibnu isxaaq ayaa soo arooriyey 12kii rabiicul awal inay tahay. ibnu isxaaqna sanad sugan kumuu soo aroorin dhalashadaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam inay 12keeda ahayd. alwaaqidi oo aada uga sii daciifsan isagu wuxuu soo arooriyaa inay ahayd 10kii rabiicul awal. abu macshar sindi ninka la yidhahdo oo culamaa ilxadiid agtooda isagana daciifka ah, inkastoo ay yidhahdaan basiir buu fi lmagaazi ku ahaa sida waaqadiyo kale, isna wuxuu soo arooriyey 2dii rabiicul awal. saaxib raxiiq almakhtuum wuxuu isagu qaatay maxmuud baasha alfalaki wadaadka la yidhahdo taxqiiqiisa sida uu ku sheegay oo ah waxay baadheen isniintu meesha ay kaga dhacaysay rabiicul awalkii sanadka ku beegnayd. dabeetna waxay yidhahdeen isniintaasi waxay ku beegnayd 9kii rabiicul awal. qoladaasina iyagu waxay ku tagtay iyagu aan taariikh ahaan daliil soo aroorinayna waxay aroorinayaan ay tahay uun min xayta taariikh isniintaasi goorbay ku beegmaysay ayay eegeen maalmahaasi. dabeetna waxay qaateen inay ku beegmaysay 9kii rabiicul awal. dhankan kale marka la sheega bay yidhahdeen waxay ku beegmaysaa 20kii ama 22kii ibriil 571 sida uu qirayo weeyaan moxamed sulaymaan almansufuri. isku soo duuduub waxaa loo baneeyay inuu rabiicul awal qaybteeda hore wakti ka mida dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam, laakiin bidabdi midi ma jirto. walidalik raggan mawlidka wadwadayo waxa kani meelaa lama hubin bay u mawlidsanayaan. yani in mawlidsato waxa ka horeysa inaad maalintu inay tahay in la garto. laakiin waxay ahayd haddii sunno la rabo in isniintaa sunno ahe la soomo kaasa ku filan.
yani nabigu calayhi salaatu wasalaam marka la eegayo matalan qadiyada mawlidka ku saabsan dhalashada ku saabsan muu tacdiiminintii ku saabsanayd taariikhda maalintay ka ahayd ee waxaa la weyneeyey maalinta toddobaadka maalintay ka ahayd. idan haddaad rabto nabiga calayhi salaatu wasalaam weyneyntiisii wuxuu nabigu weyneeyey maalintu dhashay oo isniina. mawlidkeenu inta badan isniinba kuwa beego mar jimcaynu mawlidnaa mar khamiis baynu mawlidnaa mar laakiin asalku waxa weeyaan in la mawlido uma ahayd maalin isniineed. isniintuna waa inaad soonto qaabka loo mawlidaana warkaati qaabka uu nabigu jideeyeyna waxa weeyaan in maalinta isniinta ee wiig walba ku jirta inay sunno tahay in la soomo wahada yakfiina. ama wax laaliya waxaa kale soo aroora isagu wax badan oo sanada ma laha. waxaa timi nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa uu dhashay ciddii naas nuujisay hooyadii mooyaane yaa kale naas nuujiyey. xadiidka saxiixahi wuxuu ku soo arooray marka hore inay naas nuujisay Tuwayba gabadhii la odhan jiray oo ahayd gabadh addoona oo uu leeyahay adeerkii abilahab ninka la odhan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwii halka ahaa markii uu nebinimada nabiga la siiyey markanuu nabigu yaraayo dhashay unde inaan adeerkii dhalay unbuu arkayo waa buunbuuninayey. markaas gabadh addoona uu lahaa oo ilmo dhashay oo naas nuujinaysa ilmaheediibuu u keenay yidhi naas nuuji. waana gabadhaasi tii naas nuujisay xamsana walidalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo adeerkii xamse naas nuujinta walaalay ku ahaayeen. xamse iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam naas nuujinta walaalay ku ahaayeen oo labadaba waxa wada naas nuujisay Suwayba islaanta la odhan jiray. waxaa timi xaliima sacdiya. qisada dheer ee ay soo arooriyeen asxaabu siira sanadkeeda muran badan baa ku jira culamo badanina way diidaa sugnaanteeda. laakiin waxaa sugan kolleyba in nabiga qabiilkaa reer bani sacaada la yidhaahdo iyo islaanta sacdiya la yaqaa inay naas nuujistay iyadoo sugantay. tan aynu leenahay ibnu isxaaq aynu leenahay qisada dheer ee la tilmaamo waa qisada tan iyado ee sanadkeeda muranku ku jira. waa qisada sheegaysay in wakti abaareed ay ahayd oo iyadoo abaar tiro badan ay iska jirto ay gabadhani dumar kale soo raacday dameer yaroo ay lahayd ay soo fuushay dameerkeeda tamar darri daraaddeed kolba loo joogsanayay. kadib ay maka yimaadeen ay isku dayeen inay ilmo ay naas nuujiyaan inay helaan. carabta caadadeeda waxa ahayd maadaama maka ay magaalo ahayd alxadar oo reer magaala waxay ohan jireen carruurtu si ay caafimaad fiican u hesho magaalada laga saaro baadiyaha kusoo koraan caanahana baadiyaha kusoo cabaan. waxay u arki jireen carruurtu markay baadiyaha kusoo kobacdo inay adadkaato ay fiicnaato oo kuwa magaalada inay ka wanaagsan tahay. saasi daraaddeed carruurta inta badan baadiyaha loo diri jiray. islaamaha baadiyaha ee naaskoodu irmaan yahayna naaskooday ku xoogsan jireen intay magaalooyinka yimaadaan bay kuwa tujaartu dhashay iyo carruurahaasi meelaha ay ohan jireen kan ilmaha kuusoo naas nuujisay oo kuusoo koriye dabeetana waa lagu maal siin jiray xoolaa lagu siin jiray. qisada ibnu isxaaq siduu soo arooriyey wuxuu leeyahay markii ay magaalada yimaadeen ee dumarkii carruur soo wada helheleen maxamed waa la wada dhaafaya baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam waayo inan yaro ana aabba lahayn awowgaa waxoogaa ku siin doona waa iska nin aabihii nooliyey baa la daydayanayay. saasi daraaddeed waxay leeyihin waa la iska wada dhaafdhaafay. magaalada soo marmareen wax la dhaafdhaafaan kan dhaafnaba markii aan wax kale soo waayey ayaan sidibay tiri de faramadnaan hala noqonine haata wuxuu kusii faralaabo markaasaan iska soo qaatay bay tiri agoonkan yare awowgii leeyahay la soo naas nuujiye saasaan kusoo qaatay bay leedahay. sidee baa ku baxday. laakiin waxay sheeganaysaa markaa iyadu wax badan inay ka aragtay. naaskii bay nuujisay oo dabeetana naaskii iyadoo waxbaba cunin unbu iska darabaayo isaga iyo kii yaraayo kale la jaqeeyaba uu ka tiro batay oo xoolahoodii baa ilaahay u irmaaneeyo caanihii iyadoo abaara oo xataa reeruhu yidhaahdaan dadka kale war maxaa halka reerkani xoolaa daajistay idinoo soo daajin weyde. waa lala soo daajiyaa un dadka kale oo waxba kuwooduma soo faa'iidaan ee uun islaantan xoolaheedu maa darara. barakaadkaa tirada badan le adigu nusuusta sheegtaa waa ma xoog badna sanad ahaan ma xoog badna culamadana wax badan bay ka sheegaan. laakiin in ay xaliimi naas nuujisay iyadoo sugantay. xaliima sacdiya islaanta la yidhahdo inay naas nuujisay riwaayaadka sheegaya axaadiista waa sugan yihin insha allahu tacaala. intii ay islaantan uu la joogayna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa dhacday mucjisadii laabtiisa dilaacinta. nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa iyaduna waxay sugaysaa 2 jeer in jibriil uu qalay. mar waa markii israa wal micraajka marna waa markan uu yaraa. markan uu yar yahay
qolada tan la joogay Xaliima Saadiya gurigeeda uu joogay waxa ay nusuustu sugaysaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ciyaal kale la cayaaraya sida xadiiskii saxiixu muslimkaba ku yaalay inuu jibriil u yimi isagoo ciyaal kale la cayaaraya dabeetana jibriil inuu lagday inuu dabeetana laabtiisa dilaaciyey in qalbigiisa wadnihiisa lasoo saaray wadnihiisa dabeetana calaqa xinjir yar inuu kasoo gooyey xinjirtaasi inuu yidhi waa xaddu shaytaani minka waa qaybta shaytaan uu nafta ku leeyahy yani qof kastoo bini aadama malaguna waa la xidhiidhaa shayaatiintuna waa la xidhiidhaa lama khayrka lagala xidhiidha iyo mid sharka lagala xidhiidha jira kaa sharka lagala xidhiidha markaa nabiga isaga laga saaray calayhi salaatu wasalaam jibriil markaa wuu qalay wuxuu ka soo saaray wadnihiina calaqada yar xinjirtaa yar buu ka tuuray dabeetana wuxuu ku sheegay inay tahay xaddu shaytaani minka wuu maydhay tusti dahaba oo maa u zamzam ay ku jiraan ayuu ku maydhay dabeetana uma laama dib buu isugu geeyey meeshiisii buu ku celiyey serjarigaasi ama qalliinkaasi waxaa sameeyey malakul jibriil axaadiis saxiixaana ku sugan inuu jibriil u sameeyey qalitaankaasi carruurtii yaryaraydna waa carartay markaasi oo islaantiiba u tageena waxay yidhaahdeen wiilkii yaraa la dilo oo dee waxay arkeen halkaa isagoo lagu legdayey waa markii dambe islaantii soo carartayna waxay u timi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo midabkiisii siiro bedelay ila waa nin qalliin lagu sameeyey dabeetana Anas ibn Malik oo xadiidka warinaya wuxuu leeyahay tolmadii raadkeeda waan ku arki jiray buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam Anas waa ninkii wiilkii yaraa u shaqayn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu nabigu u hijrooday Madiina 10 sanadood oo Madiina joogay nabiga khaadimuha Anas ibn Malik saxaabiga la yiraahdo markaa wuxuu leeyahay nabiga waan ku arki jiray buu leeyahay halkii uu ka tolay malakul jibriil khaydka waan arki jiray buu yidhi meeshaas Xaliima Saadiya markii ay aragtay in wiilkii daa arrimahan inay ku soo kordheen bay u cabsatay dabeetana way soo celisay masaladaa sheegaysa inay u cabsatay musnad imaamu axmed bay ku soo aroortay laakiin sanadka ayaa laftiisa wax laga yara tilmaamaa nin balada mid la soo cancaneeyey baa ku jira insha allah sanadku waa xasan haddii ninka cancanadiisa oo tasriixa la helo على كل حال islaantaasi waxay ka cabsatay maadaama ay aragtay wiilkii wixii ku dhacay oo dhan way cabsatay wax istilmaayay wax ugu noqonin hadaba reerkoodii isaga celi dib bay soo celisay waxay keentay markaasi magaaladii Maka ahayd ay ku soo celisay waxa ay ka gelisay markaa reerkoodii hooyadii baa gacanta laga geliyay hooyadiina markii ay muddo yar haysayba way geeriyootay waxay qabatay baa la yiraahdaa markay soo kaca Madiina soo qabatay iyadoo rabtay abtiyaasheeda ama wiilka abtiyaashiina inay soo tusto isla markaasi inay soo eegto xabaashii odayeeda dabeetana markii ay ka soo noqotay dhexda soo socoto ay dhexda ku gooday sida waramaa taariikh sheegan alabwa meel la yiraahdo Maka iyo Madiina dhexdeeda ayay nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiina ku dhimatay halkaas waxa ka soo qaaday gabadhii khaadimada ahayd oo nabiga markii aabihii dhintay wuxuu uga tagay baba la yiraahdaa 5 neef oo geel aflaya iyo yaro ariya iyo islaan madow oo Ayman la oran jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam tiisoo xaadinada ahayd ee soo korisay marka Ayman iyo Abdul Muttalib oo odagii hayay iska hayay saas ba Abdul Muttalib ku hayay ilaahay isaguna intii uu ka geeriyoonayay waxa la yiraahdaa 8 jir meelaha markuu ahaa iyadana sanad saxiix kuma soo arooreen oo culimada taariikhda sheegtay 8 jir meelaha markuu ahaa buu geeriyooday Abdul Muttalibna markaas baa lagu wareejiyay adeerkii Abi Talib nin xoolo badan ma ahayn laakiin nacruur badan oo ahaa mana xoolo badnayn haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam muddo aad u badan ayuu maciisaha ilaa intuu dhowr 40 jir gaaray nabiga calayhi salaatu wasalaam si weyn buu maciisa u ahaa in badanna uu la soo wax ka soo rabay inkasta ilaahay ku anfacin diintiisii oo aanu rumaynin Abi Talib isagoo 40 sano nabiga u soo gargaarayay ku dhadhow haddana gaalnimo buu ku dhintay ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحمركي يدن بيسوي دمني وكقولها كلمة أنا لا هي آخر وحكوه ويديون به لا إله إلا الله كله مركو إسرائيل لا إله إلا الله دنا
habar qabi abi jahl oo meesha fadhiya yidhahda waa ceegoobaysa ma maanta adanka yar raacday adigoo qurasho odaygii ay daba fadhiday saatan oo halkaas u saaray kadibna gaalnimadii buu iskaga dhintay waana kuu nabigu la alayhi salaatu wasalaam cid gaala oo nabigu uu shafeeci doono isaga jira laakiin shafeecadiisu ma noqonayso mid naar lagaga saare waxaa naarta kulule weyn baa laga geynayaa iyo waxaa loo geynayaa naar yar oo aan laba kabood oo naara loo gelinaya laakiin waa laba marka loo geliya buu nabigu yidhi madaxiis yani baxbax min annaar ilaa qoobka naar joogta uradu ama kaba noqota ama wax laga noqotay ayaa la gelinaya laakiin taasaa madaxiisu ka fakfakleynaysa xagga sare waa cadaabkaasoo abi aalib gelaya noocaasiya idan ninkii gaalnimo ku dhintaa aabbahay baa sheekh ahaan jiray iyo adeeraday baa awliye ahaa waxba ku heli maysa haddana adigu mid khayr qaba ha noqonin walidalika baa qur-aanku wuxuu kaloo inoo tilmaamayaaba de nebi wiilkiisu ahlu naarka ka mid yihi nabi nuux soo qur-aanku inooma sheegayo wiilkiisii u taag waayey oo laha warkaalay anigay soo raacay doon soo raaca lacaa buurtaan ka fuulaya ayaa iska tag qur-aanku wuxuu kaloo inoo sheegaya nebiyo haweenkooda ay ahlu naar noqonayaan xaasaskooda markay raaci waayeen oo waa ka imraatu nuux وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما شيئا وعقل عكسي القرآن كله شيئا هوان إلهي الرميي الرقود قالها يقول الجنة الجلية وامرأة فرعون إلهي آيات كاسك والرمية إذن أبي طالب بقى مدسه هي أبي طالبنا قصص بدن على الشيء انتو النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما دام أنا نوحي الروايات الصحيحة إن شاء الله وينوسك قبودينا waxay intaa la raaciya waa tegistii uu nabigu isagoo dhowriyo 10 jira u tegay buxayra raahib iyo wixii lamida insha allah halkaas inuu baraka bilaabi doona wallahu a'lam billahi tawfiq